dadkoodan meeshaas u jeedaa sawirka Allah sameeyo qoyskani si wanaagsan ayuu waaga ugu bariyay maanta hase ahaatee casirliiqani waxa gurigan ka jirta murugo marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo ahaa aabaha 12 caruur ah ayaa la sheegay in koox rag iyo dumar ah oo ku hubaysnaa baangado iyo basiin ay marxuumka baangad la dhaceen sidoo kalena ay dab qabadsiiyeen xilli uu shaqo maalmeedkiisa farsamada gaadiidka ku guda jiray sida ay sheegeen ehelkiisa waxa dilka marxuumka loo aaneynayaa heebsooc guur maxamed cumar yuusuf waxa uu goobjoog u ahaa sida dhacdadan ay u dhacday sikiisa u tagan macalku soo ordi gurina ku soo ordurabi oo maarta dadka oo irida ka xirta irida ku xireen laba nima meesha u taagnay iridan labana xagga ka soo bursi saddex naagood way beertay saddex naagood baagado ku bilaabeen mid waxa jiro oo leebo dheer watay oo madax kale oo baash musunta la marsan macalinka oo la xarbiyay macalinka soo gacanta iska dhigaa ila macalinka wax u mooto dagaalka ma ogeynba ku talgalna ma ahan marka ninka waxa arkay asagoo inta ka geli mid asay oo la socday basiino watay caawa uu jiri basiinka ku shab ku sii naag oo la socotay ku daartay xaasaskiisa oo la kala yiraahdo Saciida Aways Cabdulle iyo Farxiye Axmed Qaasim oo midna 8 caruur ay u dhashay midna ay 4 u hayso ayaana la hadlay dad badan ay ahaayeen wax yar ma ahayn ma fahantaadi ninkan waxa lagu dilay 3 naag iyo 3 rag lagu dilay laakiin naag wax dhib ka geystay 5 qof waaye ilmo ka tagay dad oo ka tagay ehelo ka tagay walaalo ka tagay ifkan laba xaasa u joogto marxuumka la dilay ee halkan lagu gubay sida la sheegay ayaa waxa uu aabo u ahaa oo korinayay ilaa iyo 12 caruur ah waxaana kooxda weerarka ku soo qaaday sida la sheegay ay diris la ahaayeen marxuumkan aabaha marxuumka oo lagu magacaabo Mukhtaar Saalax ayaa sheegay in wiilkiisa uu ahaa xooga kaliya ee qoysku leeyahay alxamdulillah hadda bas gacanta ku hayay xoogoodaas ahay kaasoo kalena ma dhalanaya ninkan la dilay ayaa adeer u ah wiil dhalinyaro ah oo guursaday gabar aysan isku heeb ahayn Munassar Maxamed Dalsan TV